kulanti wanaagsan daawadayaal kuna soo dhawaada warka subaxii Haga Media qodobada saaka aan idinayna waxa ugu dooron digniin culus oo laga soo saaro weerar ay al-shabaab kaga fuli karaan magaalada Muqdisho gaadiidka ay ku qabsadeen deegaanka Ceel Saliin ee gobolka Shabeellada Hoose shirar kala duwan oo xalay ka dhacay hoyga Sheekh Shariif iyo waxgaradka horaalgelinsiiyay duqa Muqdisho weerar afka ku qaaday madaxweyne Sheekh Shariif sheegayna inuu sharciga ka weyneen madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud oo walaac ka muujiyay howlaha guud ee dalka iyo amnigooda Jabuuti oo ka digtay arrin halis ku ah Soomaaliya oo kaga imaan kara dhanka Kenya gudoomiyaha gobolka Shabeellada Hoose iyo mas'uuliyiin kale oo ku xayran magaalada Marka siyaasiga Cabdiraxmaan Cabdishakuur Amisom la xiriiriyay xayraad la saaray madaxweyne Sheekh Shariif akhbaraadka dibadda warka subaxii Haga Media aad ku daawan doontaan waxa ka mid noqonaya Carabta Israa'iil oo ka soo horjeestay dib u doorashada Benjamin Netanyahu iyo Maleeshiya dad ku laayay tuulooyin ku yaala Burkina Faso fadlan haddii aad nagu cusub tahay subscribe YouTube channelkan Haga Media si aan idinku soo gudbino wararkii ugu dambeeyay ee Soomaalida iyo caalamka intiisa kale hagaag markaana warkii oo fidsan waxaan ku bilaabayaa wararkii Sheekh Shariif oo siyaasad ahaan wali taagan gudoomiyaha gobolka Banaadir ahna duqa Muqdisho Umar Maxamuud Maxamed Finish ayaa baaq nabadeed wuxuu ka soo saaray xaaladda siyaasadeed ee dalka ka jirta ee ku saabsan arrinta Sheekh Shariif ee ku aadan xanibaadii laga saaray duulimadu ku aadi lahaa magaalada Kismaayo waxaan ka codsanayaa madaxweynihii hore ee dawladda kumeel gaarka ahayd ee Soomaaliya mudane Sheekh Shariif Sheekh Axmed in uu hogaansamo awaamirta dawladda ka muwaadin ahaan misna uu ka fogaado wax kasta oo si horanaya khilaafka siyaasadeed u dhaxeeyo dawladda iyo dawlad goboleedka Jubbaland waxaan sidoo kale ka codsanayaa madaxda qaranka ay qusayso arrintan inay wada hadal iyo afgarad la dhameeyaan khilaafka jira ee ku saabsan Jubbaland iyo tan ka dhalatay arrintaasi shakhsi ahaan waxa uu yiri waqti waxaan ku bixin doonaa sidii loo dhaxaadi lahaa isjidkan ka dhex jiro dawladda Jubbaland oo bulsho badan ay waxyeelo ka soo gaarayso dalkeena waqti xaadirkan kuma haboona khilaaf waxa uu haboon yahay xal iyo wada tashi inaan ku dhameeyno wax walba ayuu yiri arrintan ayaa timid kadib markii diyaarad uu raaci lahaa madaxweynihii hore ee Soomaaliya Sheekh Shariif iyo dad shacab ah galinkii dambe Axadda lagu xanibay magaalada Muqdisho taas oo la sheegay in dawladda ay bixisay amarkii lagu xanibay dhinaca kale qaar ka mid ah waxgaradka Soomaaliyeed ayaa booqasho ugu tagay hoyga uu ka degay magaalada Muqdisho madaxweynihii hore ee Soomaaliya Sheekh Shariif Sheekh Axmed oo gaf dawladda federaalka Soomaaliya kala kulmay Imaan Maxamed Yuusuf Cali Imaam iyo Ugaas Maxamuud Cali Ugaas ayaa madaxweyne Shariif u sheegay inay ka xun yihiin isor istaaga laga sameeyay wafdigiisa ee ku sii jeeda magaalada Kismaayo waxa sidoo kale uu sheegay inay dadaal badan ku bixin doonaan sidii loo xalin lahaa dhibaatooyinka ka dhashay xayraadii lagu saaray Shariif magaalada Muqdisho sidoo kale nabadoonnada ayaa sheegay inay xal ka keenin doonaan dhanka madaxda dawladda federaalka Soomaaliya iyadoo madaxweynihii Soomaaliya uu ka maqan yahay dalka isla markaasina uu joogo magaalada New York oo uu kaga qayb galay shirka guud ee golaha ammaanka qaramada midoobay madaxweynihii hore ee Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud oo shir jaraa'id xalay ku qabtay magaalada Muqdisho ayaa walaac ka muujiyay xaaladda maanta ay ku sugan tahay Soomaaliya waxa uu sheegay in shacabka Soomaaliyeed ee ku nool Kismaayo ee cunqabateynta la saaray ay tahay nasiib darro weyn in dawladda dhexe ay shacabkeeda dhibaatayso Xasan Sheekh Maxamuud ayaa madaxweyne farmaajo iyo ra'iisul wasaare Xasan Cali Kheyre ku eedeeyay inay guud ahaan baal mareen shuruucda dalka annagoo soo joognay 30 sano oo burburka hadda aanu ka baaqsanayno aanu soo marnay waxa wadadii u hungoobaya laguna dulminaya shacab Soomaaliyeed ayuu yiri Xasan Sheekh Maxamuud shacabka Muqdisho ayuu sheegay inay nolosha ku adkaatay kadib markii wadooyinka laga xiray isla markaasina hadda ay wajahayaan xaalad adag oo macquul ay tahay inay sababto kacdoon dadweyne markana gobolka Shabeellada Hoose xildhibaan Maxamed Xasan Idris oo ka tirsan golaha shacabka Soomaaliya ayaa ka hadlay weerarkii daraad subaxii ay al-shabaab ku qaadeen saldhig military oo Soomaaliya ay ku leeyihiin ciidamadooda gaaraha militariga deegaanka Ceel Saliin ee hoostaga magaalada Marka ee gobolka Shabeellada Hoose xildhibaanka ayaa nasiib darro ku tilmaamay madaxda dawladda aysan wali tacsi ka bixin weerarkii jabka ah ee intaas leeg ee loo geystay ciidamada qaranka sida uu sheegay isla markaasina lagu dayacay farmaha dagaalka Maxamed Idris ayaa sidoo kale sheegay in wax laga walwala ay tahay in gaadiidka iyo hubka intaas leeg ay qabsadeen oo ay ku gubsanayeen astaanta ciidamada qaranka ay gacanta u galeen al-shabaab taas oo fududeyn karta buu yiri sida uu sheegay weeraro ay al-shabaab uga geystaan gudaha Soomaaliya meelo ka mid ah magaalada Muqdisho waa kana xildhibaan Idris oo arrintaas ka hadlaya bedelkii xukuumadda xataa ay ka tacsiyeyn lahayd tiiraanyada ay muujin lahayd ciidanka hubkii ay qaateen nimankaasi waxa ku jira gawaari gaashaaman oo xoogga dalka ku sawirnaa oo number plate-yadii baabuurta numberkooda ku dhaganaa
waxaan ka digaynaa baabuurta hadda gobolada shabeellada hoose ka imaanaysa kulligood marka hore horta ciidanka xoogga ah in la xaqiijiyo nimankii hubkaas qaatay in ayna halaag kale ku geysan ayagoo iska dhigahaya ciidankii qaranka waa musiibo kaloo haddana dhici doonta waayo baabuurta culculus ee gaashaaman ay qaateen oo kalarkii ciidanka xoogga ku sawiran nambaradii saaran dharkii ciidanka iyo hubkii saanadii wixii dhanba ay u dhan yihiin ay wataan nimankaasi halis kale soo wadaan. dagaalyahano ka tirsan al-shabaab ayaa waa berigii hore ee subaxdii axadda waxay weerar ku qaadeen saldhigga deegaanka ceelsaliini xilligaasoo sida la sheegay aysan foojigneen ciidamadii ku sugnaa saldhigga waxaana ay al-shabaab ay war ka soo saareen dagaalkaas oo ay sheegeen inay ku dileen in ka badan 20 askari waxaana sidoo kale ay tilmaameen in ciidamada xoogga dalka ay kaga furteen gaadiid dagaal iyagoo soo bandhiga sawiro iyo askar ay nolosha ku qabteen. dowladda Djibouti ayaa wali wado dadaal ay ugu jirto sidii ay ku lahayd matalaada kursiga Afrika ee golaha ammaanka qaramada midoobay kadib markii dhawaan loolan ay la gashay ama loolan midowga Afrika ay Kenya guusha ku qaadatay. wasiirka arrimaha dibadda ee Djibouti ayaa sheegay in Kenya aan lagu aamini karin kursigaas isla markaasina golaha ammaanka ay u baahan tahay arintaas inay fiiriyaan iyadoo khilaaf xooggan Soomaaliya kala dhaxeeya Kenya ayuu yiri wasiirku. wasiir Maxamuud Ali Yuusuf oo safiirada ajnabiga ee dalkaasi arrimahaas kala hadlaya sheegay in musharaxnimada kursigaasi muhiim ay u tahay Djibouti inay hesho si looga fogaado in Kenya ay Soomaaliya kaga eexato kursigaasi. Djibouti waxay qiyaasaysaa inaysan marnaba ka hari doonin kursiga golaha ammaanka ee aan joogtada ahayn ee qaramada midoobay waxaana uu sheegay in dadaal ku bixin doonaan isagoo halkiisii wata ayuu intaasi raaciyay Kenya laguma aamini karo amniga gobolka waxay dhibaato ku keeni kartaa kursigaas haddii ay gacanta ku dhigto Soomaaliya oo arrimaha badda ay isku haystaan hase yeeshee waxay Kenya ku naaloonaysaa taageerada dalalka midowga Afrika sida ay ugu tartamayso kursigaas ay damacsan tahay in golaha ammaanka ay ku matasho qaaradda Afrika. cod bixinta ayaa bisha Agoosto la sameyn doona xubinnimada waxaana sidoo kale lagu wadaa in arintan ay Kenya ama Djibouti mid uun ku guuleysto. gudoomiyaha xisbiga wadajir Cabdiraxmaan Cabdishakuur ayaa si adag wuxuu uga hadlay soo istaagii lagu sameeyay madaxweynihii hore ee Soomaaliya Sheekh Shariif Sheekh Axmed oo daraad lagu celiyay magaalada Muqdisho isagoo ku sii jeeda Kismaayo sida uu kaga qayb galo caleemasaarka xafladda madaxweyne Madoobe. Cabdiraxmaan Cabdishakuur ayaa sheegay in uu si xooggan u cambaareeyo sida loola dhaqmo Sheekh Shariif Sheekh Axmed oo uu sheegay halgankiisu uu ka soo bilaawday soo deynta wiil ardaydiisa kamid ah oo xoriyadiisa laga qaaday isla markaana aanay maanta joogin in isaga xoriyadiisa socdaalka laga qaaday sidoo hadalka u dhigay. sidoo kale wuxuu intaasi raaciyay in wixii dalka ka dhaca ay mas'uuliyadda qaadi doonaan AMISOM maadaama ay ka aamusan tahay waxa dhacaya iyadoo loo adeegsanayo awoodooda. waxaan si xooggan u cambaareynaya xayiraadii safar ee loo geystay madaxweynihii hore ee Soomaaliya Sheekh Shariif Sheekh Axmed iyo wafdigiisa iyo shacabka kale ee la socday. dastuurka dalka qodobkiisa 22aad waxa uu damaanad qaadaya xorriyadda isku socodka dawladnimadu dastuurka ayay ku dhisan tahay kuma dhisno kaliya ayuu yiri in qaranka la qiyaano. Cabdiraxmaan Cabdishakuur madaxweyne Farmaajo iyo Xasan Cali Khayre ra'iisul Soomaaliya amarkood ayaa lagu laayay shacabkii Baydhabo doorashada AMISOM oo ay joogtay qaarkoodna iyagu ayay taageersanaa ayuu yiri waxaana ay u muuqataa in arimihii dhacay iyo sidoo kale khilaafka siyaasadeed ee taagaba uu ku eedeynay inay ku leeyihiin AMISOM. gudoomiyaha gobolka Shabeellada Hoose Ibraahim Aadan Najax iyo mas'uuliyiin ka tirsan Koonfur Galbeed Soomaaliya ayaa ku xayiran magaalada Marka ee gobolka Shabeellada Hoose sida ay xaqiijiyeen mas'uuliyiin ka tirsan maamulka Marka. gudoomiye Najax ayaa toddobaadkan ka soo laabtay agagaarka Shalambood kadib markii halkaas qarax ay ku weerareen al-shabaab isagii wafdigiisa waxaana ay dib ugu laabtay magaalada Marka ee xarunta gobolka Shabeellada Hoose. mas'uuliyiin ka tirsan maamulka Marka ayaa xaqiijiyay in gudoomiyuhu uu dalbaday diyaarad balse ilaa haatan aysan u imaan diyaarad ciidan oo ka qaadayay magaalada Marka sida uu u tagay magaalada Muqdisho ama deegaano ka tirsan gobolka Shabeellada Hoose oo gaadiidka aan loogu tagi karin. gudoomiye Najax waxa uu ku xayran yahay Marko waxa la waayay diyaarad qaado sidoo kale waxa looga digay inuu maro dhulka soo al-shabaab oo weerar u geysan kara ayuu yiri qof ka tirsan maamulka Marka oo la hadlay warbaahinta warkan ka soo xigeenay caasimada. gobolka Shabeellada Hoose ee Soomaaliya ayaa wajahaya dhibaatooyin daran oo dhanka ammaanka waxaana ku sii badanaya weerarada al-shabaab kii ugu dambeeyay ayaa ka dhacay deegaanka Ceelsaliini oo ka tirsan magaalada Marka ee xarunta gobolka Shabeellada Hoose. fadlan haddii aad nagu cusub tahay subscribe YouTube channelkan Haga Media si aan kugu soo gudbino wararkii ugu dambeeyay ee Soomaalida iyo caalamka intiisa kala hagaag markaan akhbaraadkii dibadda. maleeshiyaad looga shakisan yahay inay ka tirsan yihiin kooxda jihadoonka ayaa weerar ku qaaday 2 tuulo oo ku talo dalka Burkina Faso waxaana kooxdu ay dileen 9 qof. ila wareeda ka tirsan laamaha ammaanka ayaa BBC-da u sheegay in weerarku uu dhacay 2 maalmood ka hor
isla markaasina weerarka lagu qaaday duleedka deegaanka Borzinda oo dhaca waqooyiga dalkaasi. waxay intaasi ku dareen qaar ka mid ah dadka ay deegaan kooxda ay ahaayeen dad beeraley ah. ugu dambeyn xildhibaano ka tirsan carabta Israa'iil ayaa taageeray madaxii hore ee ciidamada Israa'iil Benny Gantz oo inuu noqdo ra'iisul wasaaraha xiga ee dalkaasi. waxay ka soo horjeesteen xildhibaanada in Benjamin Netanyahu uu mar kale noqdo ra'iisul wasaaraha Israa'iil. Netanyahu iyo Gantz ninka la yiraahdo waxay hadda ku tartamayaan sidii ay ku soo dhisi lahaayeen isbahaysi hogaamiye Israa'iil cidda ku guuleysan doonto ama noqon doonto ra'iisul wasaaraha xiga ee Israa'iil. guud ahaan daawadayaal intaas ayaan ku saafmeeray warka subax ee Haga Media. nabadgelyo.